madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay dhalinyarada ku jira ciidamada militariga kuwaas oo loo magacaabay hoggaanka ciidamada qayb ka mid ah. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga kulan kula qaatay saraakiisha dhalinyarada ee loo magacaabay hoggaanada ciidanka militariga. madaxweyne Farmaajo ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa uu ka shaqeynayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxa uuna dib u habeyn iyo isbedel ku sameeyay hoggaanada ciidamada. kulanka uu la qaatay madaxweynaha saraakiisha dhalinyarada ee lagu soo tababaray dalka dibadiisa ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Cabdiwali Jaamac Gorod. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay kartida iyo dadaalka saraakiisha dhalinyarada waxa uuna ku booriyay sidii ay markaasi u dardargelin lahaayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo difaacidda dalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu isbedel ku sameeyay hoggaanka talisyada ciidamada xoogga dalka oo ahaa ilaa iyo 22 hoggaan waxa uuna ku soo koobay 13 hoggaan oo qayb ay ka yihiin saraakiisha dhalinyarada.